ما شاء الله ولا إله إلا هو أنفع قرآن يدعوين ما شاء الله ما شاء الله ولا لا هذين كنا دقيس غير دقيستين أبا ما تنتهين ما شاء الله ولا لا وحنتوني ما أنتنا كهذلو هرت واحد ونعكسن أنا السوشيال ميديا مركز صوت قري أدبن قيلين يقف عريس بانها لكن السوشيال ميديا وحيابها هذا أنت بركي دنبه عن لقب صدي ما عرفت دي مركي دنبه حين نقضي واحد عادي نورمالا مركي هورنا وحنا قف السوشيال ميديا كحرنا ومركز تداوته مركا وحنا مركز وحنا نركي شري dadka oo ka sheekeynaya anigoon qofna ataagaynin ba waxaan arki jiray dadka oo isku haysta qabiyaale macnaha dad qabiil ka sheekeynaya ana reer hebel ana kaalaan dheeraysan ana ka fiican ana ka qabiil fiican mogte ama se iscaayaya ama qof duulimaad lagu yahay oo la dulmaayo oo la caayayo marka waan fikro waxaan u heeday dadkan marka waan anigu macnaha dadka cayda dhigistamihi thank you walaalo dhamaantiin dadka cayda dhigistamihi waxaan soo jiray soo dadkani qofkan tan waxa darkisa dad badan oo dad waxa darkisa qof waxa darkisa dadka qof caayaya maanta oo dhan buu jarjaraya maanta oo dhan buu tirinaya ana reer hebel ana ka fiican cayda dembiga meesha ka socda bismillaahir rahmaan waxaad soranaysaa tolo qofkan miyaanu dhimanayno xabaal ka dambeeynin tolo qofkani miyaanu dhimanayno xabaal ka dambeeynin marka waxa weeyaan horta walaalo social media anigu waxaan ma garanaysaa waxaan ka shaqeyn jiray qoladan Facebook oo jannatory ah macnaha anigu deemihi qof education ma garanaysaa la idinka mana cilmi badni laakiin waxaan la shaqeyn jiray qolo oo waxa jira meeshan oo jannatory waa garanaysan dadka dibadaha ku maqan jannatoryga way yaqaaneen macnaha shaqada qofku uu ka shaqeeyo maaha ceeb forever waxa doonto qabo shaqo kasta oo aad ma garanaysaa aad ka shaqeyso waa caadi shaqooyinka jannatory haddii dadka dibadaha ay la jooga way garanayaan dadka wadankii joogana way fahmi karaan waxa weeyaan shaqada waa clean macnaha waa nadaafad shaqada xafiisyada tagisa habeenkii marka laga rawxo dadka ay ama ka shaqeeyaan dadka shaqaaluhu shaqeeyaan dadkan matalan kombiyuutarada waxa ku shaqeeya xafiisyada laga shaqeeyo ayaa adigu waxaad nadiifin la guri baa laga shaqeynaya maktab bas waa guri marka kombiyuutar adduunka qalab baa lagu shaqeynaa adigu waxaad qabanaysaa shaqadaadu dad badan baa meesha u soo shaqo taga dadka qaar waa karaani dad waa mutacalimiin dad waa maxay dad waa marka adigu qof kasta shaqo leeyahay aniga shaqadaydu waxay ahayd shaqooyinka hoose sideedaba dadka badanaa shaqooyinka hoose dadka migrant-ka qabtaan dadka qaxoontiga dad wax bartayna way jiraan oo meel fiican ka shaqeeya marka shaqada aan ka shaqeynay waxay ahayd jannatorygan oo ma garanaysaa qaybtiisa building Facebook iyo u kreeyay adigu le laakiin jannatoryga ayaan qolaan heerkaasi jannatoryga qolada nadaafada oo qaabilsan Kimbili marka dadkan ma garanaysaa dadka ugu badan ee gala waa indhayarta Facebook dadka aad u gala waa hindida iyo indhayarta marka inagu waxaynu sameeynaa waynu ka caytanaa waynu ka dagaalanaa waynu ka qaylinaa dadkeenu ka aflagaadeynaa waxyaabo badan way jiraan dad wax fiican ka sameeya laakiin inagu waxaynu sameeynaa badana macnaha anigu dadka intasaan u arkay inkastoo anigu aanan markaa social media geli jirin inaga laakiin waan daawan jiro waan ku xidhnaa laakiin dadka kale adduunka wax kale ka qabtaan Facebook waxyaabaha laga sameeyo waxa kamid ah business ayaa laga sameeyaa matalan dukaan baad haysataa ama meel baad haysataa matalan anigu waxaan daawan dadka aan aad u daawan jiray waa indhayarta hindida ma garanaysaa waxyaabo badan waxay sameeyaan hindida dadka akoomay ka furtaan marka waxay ka sameeyaan waxyaabo badan bay Kimbili dadka dhan oo wada Kimbiliyo
marka waa laga shaqaystaa waxa weeyaan maxay tahay waxyaabo badan marka anagu dadkii halkan fadhiyo oo dee shaqaynayaan anaguna aan dee la shaqaynanayo hoosti alaabtii ka kini garanaa meesha ka hagaajinay mogtay marka waa dareemaysaa waxa meesha ka socda micnaha dadku waxay ka socdaan waxyaabo badan oo faa'iideysiga dhinaca faa'iideysiga ayaan ka hadlayaa micnaha inaga dhinacan inuu ka isticmaalayno ma aha dhinaca kale oo ma garanaysaa in qofku businesskiisa soo bandhigo qof baa cunto karinaya wuu soo bandhigayaa micnaha dadka kale aan Soomaaliya ma sheegay dadka kale sheegaya marka waxa jira TV waaweyn ba meesha ku xiran qof kasta oo Facebook soo geliyo waxa ku qoran qof kasta ciwaankiisa adresskiisa lambarkiisa magaciisa iyo businesska uu ka shaqeeyo qof dadkaas maxay u badan yihiin dadkaas indhayar dadka macnaha indhayartay u badan yihiin Asiaanka u badan yihiin Chinaha Hindida cadaanka badana qof badana macnaha dadka aad uga faa'iideysta waa dadka marka waan fikir waxaan u heeday meeshuba waaba community la sugayay macnaha waxa weeyaan waxaad arkaysaa wuxuu leeyahay inagu weynaan de garanayna intaas oo qaybood ay u si kala baxaa waxyaabo badan ayuu leeyahay Facebooka micnaha waxyaabo fara badan oo looga faa'iideysan kara xagga wanaagsan matalan oo kale wacyigelinta bulshada oo kale waa number 1 maxay haytoy hadaad business leedahay special business oo kale hadaad leedahay businesskaaga waad ku soo bandhigi kartaa anigu waan daawadaa bal u fiirsada waa ila aragteen baa laga yaabaa waxa jira maalin ba waxaan daawanayay naago oo indhayara waxay sameynayaan dukaan dhan furan dukaan dhan oo nooc walba yaalo special adduunka meel walba adduunka loogu kala diraayo marka halkan aynu inagu sugayno qof wax in soo galo oo businesskeena wax inaga iibsada ayada naaga dhan dad dhan wax iibinayo Facebookaasi wax ka gadayaanba micnaha Facebookaasi wax ka iibinayaan Facebook dadka qoraal ku soo qoriyay alaabta ka soo dalbanaya dukaanka alaabta bay rasaynayaan dadkii rasaynayaan marka walaalayaal social media waxa fiican in waxyaabaha wanaagsan kaga faa'iideysano micnaha oo kale hadaad adigu dhinaca wanaagsan markasta wax wanaagsan inaad soo geliso waa wax fiican micnaha oo kale hada quraankan oo kale anigu waxaan u soo geliyay waxa jira anigu waa in the morning alxamdulillah ilaahay nabad iyo ma sha Allah barwaaqo inagu soo kiciyay alxamdulillah ta inaan iska dhigeysin waa waajib ilaahay aan xusno waa wax fiican dad kale ila dhigeysanaya waxa kale oo jira aniga dad friendskayga anigu always hada waatan heesaan ku soo galayay waad arkayseen oo heesaan oo sheekeynayaan oo isruxaya waxa laga yaabaa aniga wax micnaha I know waan dareemaya dad badan oo saaxiibadaya oo igu xiran oo fanskayga iyo dadka friendskayga kamida oo quraanka xiiseeya oo jecel ayaa jira marka dadkii maadaaba aan ahay qof de maaragtay halkan ku jirto oo dadkiina ma garanaysa dadkii wuxuu soo bandhigaysa oo maaragtay u sheekeynaysa oo waqtigeeda la qaadanaysa waa inaan dadka saaxiibaday ee diinta jecel ee quraanka jecel inay maxaadirooyinka ducooyinka waxyaabaha wanaagsan inay dhageystaan waa inaan iyagana aan qaybtooda siiyo anigana inaguna waan ka faa'iideysanayna wax dhamaanteen waana inagu wada waajib dhamaanteen waa inagu wada waajib inta haddaan kaga gudbo ma sha Allah anigu diinta de anigu waan ku dhaqmaa ma sha Allah laakiin qof maaragtay de cilmi diineed leh anigu inaan diinta salaada lagu tukado waana qana ma sha Allah alxamdulillah wada qof muslim aan ahay ma sha Allah laakiin de xadiisyo dhaadheer iyo ma sii gali karo laakiin waan dhageystaa xadiisyadan dhageystaa maxaadirooyinkan dhageystaa wax ma sha Allah magaranaysaa aad baan ayaan u dhageystaa quraanka aad baan u dhageystaa maxaadirooyinka ducooyinka aad baan u dhageystaa waan dhageystaa ma sha Allah ilaahayna inagu wada anfaco dhamaantiin marka walaalayaal waxaan uga soo socday waxaan u wadaa wali waxaan sii wadaa qaybtii social media special Facebook walaal inagu waxaad arkaysaa dad iska caayaya dad iska aflagaadeynaya dad wax iska sheegaya
hablo la qaaqaawan oo lasoo dhigayo waxaas foodo un no haddaad xadiiska taqaano oo xariif ku tahay xadiiska kasii daa haddaad educationka taqaano oo adigu aad wixii aad experience aad ku leedahay haddaad tahay qof education leh oo waxbartay walaalo dadka oo waxooga dhig sabuurad intaad soo qaadato halkaa gurigaaga soo dhigo dadka u qor casharada halkan ka sii ma fahanti halkan ka sii wixii adiga aad wanaagsan ee aad taqaano kusoo bandhig wixii wanaagsan ee aad taqaano dadkana wuxuuga faa'iidee laakiin waxaan maaragtay walaalo negative ah oo magaranaysaa waxba laga faa'iideynin oo magaranaysaa cay oo qabiil oo aflagaado magaranaysaa waxyaabaha noocaasa ma fiicna waxa weeyaan inaad wax aad soo bandhigto wax dadku ay ka faa'iidayaan haddii aad ideo kale hayso matalan oo kale waxaa waryaaraheen waxaasaan anigu idgayga wakaas wadankeena waxaa loo qabto waxa laga bedelo halkaasaa wax ka khaldayin ha laga bedelo ha la saxo adigoon cid caayinin adigoon cid jaayfaynin adigoon cid aflagaadaynin soo bandhig experience aad leedahay soo bandhig waxaad khibradda u leedahay soo bandhig waad ku soo bandhigi kartaa halkan soo hadhowta halkan markaad kusoo bandhigto waxaad helaysaa shacbiyad badan waxaad helaysaa dad badan oo customero ku barta waxyaabo badan ayaad helaysaa hadda waxaan maalin daawanaya inan yar oo burco jooga oo bartay wuxuu bartay combyuutarka fayraska gala ayuu inankaa yar bartay micnaha waa horumar bal ka waran maasha allah inan yar weeye ma weyna ciyaaladii iskuuladeeda dhigta combyuutarka sayniska combyuutarka oo fayraska dhan gala ayuu wuxuu ka saarayaa wuxuu u sameynayaa xuuli u shaqeynaya combyuutarka waan ku farxay wallah because inankaa yar haddaan facebook lasoo dhigin ama aan halkan lasoo dhigin maan arkeen marka walaalayaal dadkeena Soomaaliyeed waxaan u sheegay anigoon idinka caqli badnayn idinka fiicnayn inaad qof kasta wixii ay dhigiisa ah u soo bandhigo maadaama meeshii dadkii dhamaaba ay noqdeen gebigooduba indhahoodii maskaxdooduba ay Facebook noqdeen oo Facebook qof yar qof weyn qof yar iyo qof weyn dhammaanteen aynu wada jiro because waxaad arkaysaa dadka xitaa waaweyn maasha allah dadkeena waaweyn waalidiinta way ogyihiin waxa Facebook soo kala way daawanayaan qof caruurta yar baa daawanaysa kii weynaaba daawanaya kii yaraaba daawanaya qof kasta daawanaya dadkii wax kasta oo la sameeyo halkan ay taalaa marka wixii wanaagsan aad hayso soo dhig wixii xun darab karee midda kale walaalo waxaan rabaa dadka bulshadeyda inaan u sheego anigoon idinka magaranaysaa aan idinka magaranaysaa fiicnayn idinka caqli badnayn wixii anigu jecela inaan idiin sheegaan rabaa oo ah bilfadlan waxaynu ka shaqeyn doonaa waxyaabaha dadkaas kusoo dhaweynaya walaalayaal dad Soomaaliyeed baynu nahay community baynu nahay community markaynu nahay dad Soomaaliyeed ayaynu nahay community markaynu nahay ee halka social mediaha yuu isku keensi dirin social media ha noqdo meel dadka Soomaalida la isugu soo dhaweeyo yuu noqonin meel dadka Soomaalida lagu kala kaxeeyo oo qabiilka lagu baro oo qofka xun oo dadka qof la nacsiyo qofkii bulshada u hayay xilka la nacsiyo oo maaragtay meel dadka wax laga sheego meel dadka laga caayo meel dhibaato ay foodo ay ka socoto waa inuu noqdo meel loo soo xiiso barnaamijkaagu waa inuu noqdo barnaamij loo soo xiiso waa inuu noqdo barnaamij dadku wax ka faa'iidaan waa inaad maaragtay bulshada tahay qof isku soo dhaweyn kara
وإنا تهي قف إن ميل فوق وحكا إيجا كرا معناها هاداد كإيكتو كاسوك عاي وجواب كاكله محوكولي كاكله وحكولي هير ربل بارمو لانديراني كاكله وحكولي أنا كاقبل فعن ورنيو هبل محاي هبلايو كان no it's bad adigu bal maskaxdaada yar kugu jirta adduunku maskaxu isu geeyay tabatana waxba uu noqday adduunkan aynu ku noolay koonkan aynu ku noolay maskaxa ayaa la isku geeyay bil aadan kadibna waxba uu noqday waxba la qabsaday waxaad ka fikirtaa sidii adduunkan maadaama aad tahay qof dhalinyaro ah oo ma garanaysaa dee adduunka dhalinyaro bedeshay dadka dhalinyarada ah ee adduunka ku nool ee social media soo gala ee wadankii jooga ee dalka jooga dibadaha ku maqan ama aan social media ba soo galin qof kasta oo dhalinyaro ah mas'uuliyad ba hortaala mas'uuliyadda hortaala waxa weeyaan adduunkan uu yimi wixii inuu wax ka bedelo macnaha maskaxdan ilaahay ku siiyay iyo aqoontan aad haysato iyo aragtidan iyo waxaanaad adigu haysatay ilaahay ku baray haddii aad maaragtay waxa fiican adduunka wax uga faa'iideyso dadka aad wax uga faa'iideyso special dadka adduunka ama bulshadaadaba bulshadaada waa inaad wax uga faa'iideyso waxaad matalan oo kale haddaad tahay qoraa soo bandhig buug ku soo bandhig midda kale dadkaas bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaynaan isku koobin matalan oo kale waxaa tahayba ka soo qaad waxaa tahay qoraa tahay buugaaga matalan buug baad qortay buugaad qortay Soomaali kaliya ku qorin waa inaad ku qorto English iyo Soomaali isku turjumaya ka dhigi kartaa ha ugu talagelin aniga inkastoo ay jirto buugaagta lagu qoro qasab Englishkana lagu qoro dadka wax bartay ay ku qoraan haddana waxaad ku tala gashaa wax community-geena oo kaliya aan ku koobnayn inuu yahay ha ka dhigin wax ku Soomaali kaliya wax lagu akhrisan karo ha ka dhigin waxaad ka dhigtaa wax English iyo luqadeena waad ku qoran kartaa sababtoo ah waxaad ugu qoranaysaa markaad intaa ku qorto waxaad geysanaysaa haddaad dibadda ku nooshay library-yada kale library-yada adduunka kale ayaad geysanaysaa buugaaga si loo barto uu socdo oo maaragtay adduunka u arko laakiin haddaad buugii intaad qorto wadankii oo kaliya Soomaali kaliya lagu qoro kaga soo sheekayso un madaxdeennii Soomaaliya hore ma garanaysaa Sayid Cabdullaahi Xasan macnaha history-gan way fiican tahay good history-geeni in la soo qoro way fiican tahay laakiin waxa fiican inaad haddana ku darto English oo adduunka waxaaga ka iibgeyso adduunka aad u iibgeysid oo adduunka dee adduunyada kaleena waxayna jeclaato oo soo iibsato oo soo doonato buugaagteena library-yada adduunka la geeyo oo dhalinyaradeena ay qoreen oo la gudbiyo oo inaga waxayna dhaafsiisan u noqdo waana wax fiican marka qofkii wuxuu helay shacbiyad badan wixiisi way soconayaan wax adduunka oo dhan laga arkay buu noqonayaa wax adduunka oo dhan laga qaabilay sababtan taa u leeyahay wax weeyaan anigu meeshan oo markaan galay Facebook aan bariga aan ka shaqeyn jiray miisaas basaan kale u ooli jiray marka miisaaska saan kale miisaaska waxa la saari jiray buugaag basal loo saari jiray buugaagtaas nin oo matalan kala wadanka adduunka meel kasta joogo ayaa wuxuu sameynayaa buug buu qorayaa buugii markuu qoro luqado badan buu ku dhigayaa macnaha luqado badan wixii uu special badana qofku inuu isticmaalo ayaa fiican luqadiisa iyo luqada Englishka hatta luqadaada adiga marka aad ku qorto buugan ee adduunka ah ay soron Soomaali weeyo adduunka ma akhrisanayo Soomaaliga way akhrisanayaan sababtoo waxay ku bedelanayaan Englishka meel la weydiiyaba jirta Google oo Englishka iyo Soomaaliga ku kala turjumaysa anigaygaas ayaaba gala waxaan ku kala turjumaysaa Englishki iyo luqadii kale waaba ku sheegaysaa adoon meelba baran Siri baa ku sheegaysa telefoonada jirta Siri
oo telefoonada ku jirta ku sheeg saxta marka waxaaga adigu waxaad ka dhigtaa wax adduunka oo dhan aad ka maaragtay ku socodsiin karto waa tii maaragtay haddaad buug qorto oo kale haddaad wax ideyadaada ta kale inaga businesskeena anigu business lady baan ahay waxbaan gadaa marka business lady markaan ahay inaga dadkeena oo businesska ah matalan wadamadanaynu joogno anigu Faaduma ahaan waxaan rabaa ideyada aan idinla wadaagay wax laga bedelo because experience baan u leeyahay horta waxaan rabaa dadkeena dibadaha ku maqan businesskoodu inuu central noqdo central because sida adduunka imaka inaga businesskeena central ma aha macnaha waxaynu iibinaa waxa weeyaan wax communitygeena ku saabsan alaabta culturekeena inaga oo ama dharka Soomaalidu xirato ama dadka dadka adigu ma amaan dadkan ajoon maartay xuntiga ama dadka aynu badanaa haysanaa dukaamadeenna laakiin maxaa fiicnaan lahaa wax walba inaynu iibino macnaha inaynu nahay businesskeenu inuu yahay mid dadka oo dhan inaga iibsan karaan wax dadka oo dhani inaga iibsan karaan sababtoo ah waxa fiican marka waad u fiirsan anigu waan u fiirsadaa macnaha waxyaabo badan oo inaga yara khaldan baa jira dadkina xataa dibadda ku nool sababtoo ah businesskeena haddaynu heli lahayn matalan oo kale wax la dhaho community oo Soomaalida imika siyaara loo kale hadda siyaara loo kale aniga magaalada aan joogno kale intaasoo business baa ka furan intaasoo beelood baa ka furan haddaynu intaynu meel weyn oo intee leeg aynu Soomaalideenu suuq iibsano oo meel macnaha aynu meel samaysano oo intaynu meel inaga businesskeena oo dhanba intaynu suuq weyn oo sida Chinatown oo kale marka Chinatown China iskale Chinatown oo kale matalan oo kale ama meel kale oo weyn oo Soomaalidu leedo iyo can do waan samaysan karnaa oo weyn oo intee leeg intaynu soo wada tagno aynu meel weyn kareysano oo samaysano dabeetana businesskeena aynu ku soo bandhigno businesskeena noqdo open international macnaha wax international insha Allah waana sameyn doonaa anigu hadii Ilaahay ka dhigo one day I do that waan sameyn doonaa hadii Ilaahay nafti ii daayo international macnaha wax international oo qof kasta laga iibin karo hadda dharkan haynaa oo kale waa dhar wada dhaadheer waa dharkii dharka isagu inaguna xirano marka maanta dhankan la fadhii meel yar qol yar baad kula jirtaa imaka anigu qol yar baan kula jiraa oo aad moodo kijadeeni yarayd oo kale leeg macnaha kijooyinkeena Soomaaliya oo kale waxa leegtay qolaalkii la seexan jiray reerku hal qol bay leegtay meesha aan ku iibiya qolka yaraan ku jiro guriyo kale aad madana ku dhex jiro guriyo kale ayaad madana ku dhex jiro qof de guri ku dhex jiro iyo waxbaan iibinayaa baana marka businesskaaga horumar ma sameeynayo you know why waxaad ku xidhantay community-gaagi baad ku xidhantay community-gan aad ku xidhantayna waa dad waxaynu nahay dad community waad garanaysaa qofku meel minority ka yahay minority macnaha meelanu ka nahay dad yar baynu macnaha dibadda ma badna macnaha boqolkiiba 9 waa laga badiyay marka dadkaagu baad sugaysaa inay wax ka iibsadaan dadkaagiina ما شاء الله رتوحي لقو قروة هلسة الحمد لله لكن واحد فيعنان لها معناه أنا جو وحلا بيزنس كصومالي إيه وحلاقة بدرا أيه فيعنان لها وأنا أي دقيقة مركز تمسك حد يذكوريجا صومالي دو كوميونتينا نقطة سوق وين سميستو ما شاء الله دي أي واحد قبصدان سبيشال مركز تأدوكو كدوليهين إنه واحد قبصدان أو بيزنس كانوا نقطة بيزنس انترناشنال oo dadka dhan ka dhaxay mid kale waxaan rabaa inaan idin sheego wax kale inagu ma naqaano waxyaabaha la dhaho online-ka business-keena online-ka inaynu ku iibsano oo aynu online-ka aynu wax ku samaysano sida eBay-do kale waxa la dhaho adduunka eBay-da suuqa caalamka adduunka ku jirta
innaga waxa weeyaan eBay-daas oo kale haddaynu samaysano oo eBay wax ku iibino oo waxyaabo borogaraamo noocyadaas oo kale samaysano oo maaragtay aynu waxayna samayno businesskeenu horumar buu samaynayaa laakiin intaynu qolaal yar yar halkan kula jirno oo hor fadhino nothing qolaal yar halkan marka iyaga dadka kale waxa weeyaan ma dadka 100% maaha dad wax bartay way leeyihiin 70% adigu 70% dad wax bartay weey laakiin maxay sameynayaan qofkooda aan waxba barana qofkan kala caawinayo garab taagan macnaha ayaga dadka waa is caawinayaan dadka kale adduunku is caawiyaan hadda aniga Faadmo ahaan ID-gi baan hayaa macnaha waxaan hayaa ID-gi oo ah inaan businesska Soomaalida special qurba inaan wax ka bedelo ama de dalkiiba ha joogo meel kasta meeshii address hadaad leedahay address oo meel address aad leedahayba oo aad ciwaan leedahay macnaha ciwaan oo kale businesskaaga waxaad ku iibin kartaa online anigu hadda ID-gi baan hayaa ID-gi markaan hayo maxaa iga maqan aniga waxa iga maqan tacliintii macnaha wixii experience inaan u leeyahay marka waxaan u baahanahay qof iga caawiya laakiin Soomaalidu waxay tahay gacantada biilgadhiga aniga businesskayga haddaan online ku iibin lahaa de masha Allah I know waa ii fiican alxamdulillah hadaba laakiin online kuna waa very good business waa very good macnaha eBay-do kale adoo gurigaaga iska jooga ayaa alaabtada online lagaaga soo dalbanaya adduunkaad u soo dhigaraynaysaa is easy akoonkaaga lacagta kugu jirta waad aragteen anagoo halkan joogna China alaabta ka dalbana akoon wasaas adduunka waxa weeyaan macnaha inaad adduunka horumar buu sameeyay laakiin inagu halkii 60kii weyn kula ka hoosina marka anigu maxaan sameynayaa anigu dhowr jeer baan rabaa isku diyo marka I can't pass ma sameyn karo laakiin waxaan doonayaa adduunka wax walba practice bilay inaan practice-keeda galo galaaskeeda qaato galaaska oo businesska online-ka markaan soo barto inaan one day jirka siiyo easy way ii fududahay insha Allah iguna soo duceeyo adinkuna you can do in ko dhaqaaqa macnaha aniga wixii maskaxdeeda ku jiray baan idinka faa'iideynayaa ku dhaqaaqa waxa weeyaan businesskeena Soomaalida haddaynu doonayno inaan horumar sameyno waa inaynu online-kana ku iibino online-ka lacagta adduunka ku soo xiran soo bartaada fadhiya waxaaga way socdeen suuqay galeen adduunka oo dhan ba ka iibsanaya khamaarkan yaraynu $5 iyo kula wareegana waxaan waxa laga yaabaa $10 in laga siisto balas shibis taxi baa laga goynayaa lacagtaadi weeyaan inagu farsamooyinka ma naqaan marka de waxaan ku inaan arintaas aan dadka uga faa'iideeyo aan doonay aniga waa ID-yadeeda maasha Allah anigu maasha Allah nimcooyin baa i farfadhiya halkan idea badan baan anigu ayaan leeyahay maasha Allah qofkii ka faa'iideysanay laga faa'iideysto way fiican tahay in laga faa'iideysto waa wax meesha ku jira fahanti marka waxa weeyaan anigana walaal wixii tala iyo tusaale ay igu soo biiriyo waa la isku biiriyaa ya marka social media yaaba badan oo faa'iido ku jira wasaan idin sheegay dad baa alaab ku gada dad baa garanaysa waxyaabo badan ku qabta dunka wax kasta waa lagu soo bandhigaa wax kasta oo fiican laakiin inaga ma naqaano warshayga yaraan qarsanaya ku yaraan baan qaranayaa gabadhi marka waxa weeye maasha Allah taas ayaan maanta ku soo gabagabeynaya aydiga ee laga faa'iideysanaya waxa weeye la isu faa'iideeyo wax la isu sheego la iswaaniyo anigu idinka fiicnay idinka aqli badni laakiin aydigi ugu jiray baan idin la wadaagay jazakallah walaalo ay jawaabtana waan dhageysan doonaa kulli benefit waan akhriyi doonaa commentiyadiina bal insha Allah waan eegayaa
إنه دينا في عن سوشيال ميديا دينا في عن إنه استعماله دينا في عن إنه استعمالنا دينا في عن إنه استعمالنا اوكي حباسودي دير برش كي يرا كنتريا حباسودي يغير لا يدونكم كنتريا ملبكي وحي ممكن عاد جعلها ممكن استعمالها ما شاء الله حباسودي دير اصلا يعني هاي وات وحنا waa maxay midowga hooyo what is this oo ka qariya marka waa uma sheego nafso art way xabasuuda uga soo tan leeyahay taxanuuna jira mut aniga ku haystaaba maxaad ku dartay adana waqti hooyo maxaad ku dartay ka qariya markaa لا صاك عان تهر تاني حريري را دم صاك عان يا الكيري را ونيا شريرا يا شيدي يريرا إلهي بالي الله وين بالي موت سكفي عي بورش الله يكفي بورشك ما شاء الله صبحي وسكفي عي صبحي وفيري جود عشان هذا مالت أساقا كفايدة بضم عشان هذا sometime ودي بنا لكن ساقا كفي عشان هذا ساقا كبنا في بضم يروم أقدر سطبها الكيا يا ترى ناس قبنا ما شاء الله طيب أنا اسكو قبوتشنا يا صاحبي الحبس ودي يدي فرحة يجيران وانشده يا موقت أقول قدر ماضي it's very nice والله حبس ودي يدي فرحة يجيران سيدا نفهمي بقى لقى شاكين كرا والله it's very good حبس ودي يدي يفرحة يجيران وان كهلا waxay gayar inki hadlayaaba iska hadlay inaga heelada inoo tumi baan maqaj inki hadlayaaba iska hadlay inaga heelada inoo tuma والشفاء wax kasta waa ka dawo حباسود يحلديد بالجوش ذا المغرج والله يا صومالي ما يقوم بالجور حباسود ينقول بالجوش ذا أنا قوام برت يوتيوب كان أنا قبض هذا والله يوتيوب كأيان كو قاعد بقى يوتيوب أيان كو قاعد حباسود بالجوش ذا قرقة والله
يا كبرت ما شاء الله. بالكا يبير يريا بالكا ويقصر دماغي موقت بالكا يرمى استعماله. أنا كال عندي رسم عندي قفتي لا يجنده قليا جنده الله قفتي قلا ومدنا نبغى قليا يلا عندي قفتي لا يجنده وقو بشاري. Oh my goodness, I like you. But I want it. Nice, mashallah. Very nice. Very nice. I like. قلت أنا كويسة والله. فاحة ما عرفت مركو رمت شعلي بانو أرمضة بوشيرتها أكتر سلام إلهي كرمه يوم مضافك في عام وكا I like nice. البابات ما فريا البابات أردن إيه كل واحد سيوقش مال والبا سيوقش سويلي كفر قلال كفر عيال كودا فر كاي كفر كل واحد ما فريا مال كس سيوقش كل واحد أردن قيقو مال والبا وقلا nice. بكتيريا دو عنايا ما وكا غوري غودن بكو خدين سمارتان غوري غودن بكو خدين very nice. I like خير سرع ما شاء الله. حراها يجير يلا ونقر صدي ورشكي ويهردان هدو مكسوق عن سينا ما شاء الله. كلنا ونقا قيقية الله يلا تعاليا ورتيدا إلهي ما كل توي هيلتي وفري هيلتي والله it's nice والله عاد بوجه هيليسان سما يدورت ما تجابسين والله عادي معها والله وأنا قاعد عرفتي عادي معها والله قبل بس كان ما شاء الله ما شاء الله very nice very nice way والله إنا لقى بابا شاكين كريم لقى بابا شاكين كريم قلت هذا يوح ما شاكس oh my goodness nice I like أنا ورت يوتيوب كان كدعوضي وحان كدعوضي يوتيوب حباسودة من المالين 10 بحيناي حباسودة صار كدعوضي حباسودة ذا كدعوضي حباسودة حباسود برك حباسودة ذا كدعوضي من المالين 10 بحيناي أولي لكن فوحة ما يأيدي واي أنا أكو دري أيدي جاي فوحة أنا أكو دري معناها فوحة حباسودة وحن كدعوضي يوتيوب
ayadoo la shidayo nin baan ayaan ka daawaday iyadoo la shidayo ayaan fooxa ka daawaday laakiin my id wallahi my id anaa ku daray fooxa anaa ku daray marka waxay isku noqdeenba wax kale wax isku udgoonoo nice isku noqdeen wiil taraay wallahi taraay gareeya way very nice guri kasta way taalaa suuda caadi maaha xabasawdaad u taqaaneen xabasawdo malaha dadka qaar ba xabasawdo u yaqaanaan maleeyo bismillah ما شاء الله الله يبارك الله يبارك إلهي وديك أن معاذ نسي الحمد لله الحمد لله يقفق عمك هرها الله وين واحد كه إلهي معاذ هينوسي إن شاء الله بسم الله معذب إلى هذه نسي نمعه هذا نمعه نسي ما أنت قرآن كاس أي نقول ما يسننا ونقول بلعبنا وانا نقول ما يسننا ما أنت قرآن كاس أي نقول ما يسننا quraanka iyo ducooyinka ayaynu maanta ku bilaabanay iyagana ku dhamaysanana ma sha Allah ducadii baan noogu soo celinaya wanaagsaneyd sub ducadii aad ku fiicnayd mise mid kale noo saaraa duca fiican okay wait SureColor S-Series printers are among the fastest roll-to-roll sign printers in their... الرقية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله